haddii aad baranayso luqadda Englishka waxaad inahay maanta website aad iyo aad u wanaagsan oo markaa ka caawin kara inaad horumariso vocabulary-gaaga marka luqadda Englishka baranayso waxyaabaha inta badan dadka aad ku dhigay waxaa kamid ah in kelmadaha qaar ee micno u sameeyaan hadda laga kelmadii adigoo fahamsan oo micnaheeda af Soomaaliga xataa yaqaan in mararka qaar micno ku sameyn weydo oo markaa u baahato inaad hesho context-ka markaa kelmadda lagu isticmaalayo ama xaaladda loo isticmaali karo marka waxaan inahay website aad u wanaagsan oo ka caawin kara markaa in kelmad kasta ee micno ku sameyso oo aad markaa context-ka aad u isticmaaleedaa fahamto adigoo markaa daawanaya muuqaalo iyo filimaan inta badan waxay ka soo dhex saaraan musalsalada iyo filimaanta adigoo ka dhex daawanaya marka just kelmadda un baa qaadaysaa waxaa lagu soo saari doonaa kelmadda inta filin ee English ku baxaya ama inta musalsal af English ku baxaya ee kelmadda laga dhex isticmaalo marka website cajiib ah soo dhawaada markaan isla eegno waxaan ka codsanayaa muuqaalkan marka hore intaan u guda galin in aad inoo sheegaysaan sidoo kale daan ugu cusubtaan marka platforms-kana ku soo biirtaan soo dhawaada markaan isla eegno waraysa Google-ka tag kadibna waxaa ku qortaa playfresh.me kadibna website-ka u hore calaamadda guduudka leh fur kabacdi halkan baa iman doontaa soo website-ka markaa soo gasho marka u horeyso wuxuu ku siin doonaa kelmad asaga uu ku sii gelinaya meesha sambala marka haddii adigu kelmad aad sidato waxaa sameyn doontaa on halkaa hoose ee search-ga ku qorantaa un baad ka tirtiraysaa wax ku qoran kadib kelmadda aad doonaysa inaad ku research garaysaa ku qor doontaa kabacdi wuxuu sameyn doonaa marka kelmadda inuu kaaga soo raadiyo dhammaan wixii film adduunka la sameeyay wixii musalsal adduunka la sameeyay kadibna marka uu ku sii kelmadda marka context-ka ama halka qaabka loo isticmaalayo iyo micnaha marka ay sameynayso si aad u fahamto marka aad aniga kelmad baa kelmaddaas baa rabaa inaan ku qoro kelmadda imika aan hayo waxaa la yiraahdaa ambiguous marka kelmadda haddii aan pronunciation-keeda qaldahay la yaabina marka hadda waxaan rabnaa in aan filimaanta iyo musalsalada aan ka dhexeegno kelmadda ayadoo la isticmaalayo bal markaas sida loo isticmaali karana ogaano marka website-ka kaliya kelmadda markaa ku qortid adiga waxba ma sameynayso automatically marka asaga ku shidayo filimaantii kadib wuxuu ku siin doonaa filimaan kala duwan oo aad ku arki karto ama meelo kala duwan oo kelmadda lagu isticmaalayo hadda waan ku basti kareynaa kelmadda Kind of let me know how ambiguous everything was. Was it ambiguous in any way? One seldom sees a less ambiguous case. marka dadka website-ka waa aad u wanaagsan wuxuu ku fiican yahay marka qofkii doonaya in uu luqadiisa horumariyo oo marka kelmadaha vocabulary-ga uu eego context-ka lagu isticmaali karo haddii aad doonayso markaa ka faa'iidaysato just booqo halkan aan ku soo qorayaa waxaa la yiraahdaa playfresh.me kadib markaa ku qor kelmadda aad doonaysid si aad u hesho kelmadda oo la isticmaalayo iyadoo real life ah harjina muuqaalkan ka faa'iidaysatay muuqaalka noo sii share gareeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh